Sida aynu ogsoonahay, qabowgu waa waxa ka soo horjeeda kulaylka, waana shay dabiici ah oo Ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala inay ku intifaacsadaan, sidoo kalena waxtar u yeesho makhluuqa iyo cid kasta oo ku abuuray dunidan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisa tirada badan wuxuu ugu deeqay nimcooyin aan halkan lagu soo koobi karin. Nimcooyinkaasina waxaa ka mid ah kulaylka ama markaasi diirranaanta, waa sida ay u naqaanee, iyo shayga ka soo horjeeda kulaylka oo ah qabow. Haddana si kasta oo ay tahayba, haddii qabowgu uu xadkiisa dhaafo waxa uu noqdaa dila, wuxuuna noqdaa shay dhibaato u keena qof bani aadam ah noloshiisa iyo wax kasta oo noole ahba. Haddana si kastoy ahaataba, wax walba Ilaahay sida ugu talagalay haddii ay dhaafaan waxa ay keenaan dhibaato. Wax walba, xitaa khayrka iyo wanaagga, biriga iyo samuhuba, haddii xadka ay dhaafaan oo laga badbadiyo, wuxuu noqdaa wax kale oo cagsi ku ah wanaaggii la yaqaanay. Sidaa daraaddeed, waxaa weeye khayri umuuri awsadiha, oo arrimaha oo dhan waxa u wacan in la dhexdhexaadiyo, ama yacni wax walba in la dhexdhexaysto oo aan laga badin lagana gaabin. Barnaamijkeenna maantana waxaan uga hadli doonaa, haddii Allaah awoodda leh uu ogolaado, waxaan uga hadli doonaa halka ugu qabow dunida. Waa meel xitaa aanad jeclaysanin in lagaaga sheekeeyo qabowgeeda awgeed, in aad ku noolaato iska daa ama aad booqatee. Waxaana ku nool dad aad u tiro yar, runtiina la qabsaday nolosha halkaasi ka jirta ee aadka u adag. Waa nolol aan kulayl la arag, qorraxdana loo raadiyo sida bisha oo kale. Haddaba kusoo dhawaada barnaamij xidhiidh la leh oo aan kusoo qaadanayno meelaha ugu qabow adduunka ama xidhiidh la leh arrintaasi, noqonaysana meesha ay cimiladeedu tahay halka ugu qabow dunida. Halkani waa meesha ugu qabow kowkabka aan ku dul noolnahay. Kowkabka Ilaahay abuuray waa Greenland, waa jasiirad aad u weyn, sidoo kalena ah jasiiradda ugu qabow dunida. Mar haddiiba halkaasi aad tagtana waxa aad urinaysaa ama aad u dhowaanaysaa geerida lafteedii. Waa meel dadka ku nool ee gaaraya 60,000 ay ku dadaalaan sidii ay nolosha baaqi ugu sii ahaan lahaayeen, iyagoo ku bixinaya dadaal aad u badan. Waxay xidhanayaan dhar aad u adag, kuwa oo laga sameeyey xayawaanada iyo nooleyaasha qaar ee halkaasi ku nool, si ay markaasi uga helaan waxoogay diirranaan ah, uguna baaqi ahaadaan nolosha. Halkan markaad joogto, waxaad arkaysaa shay waliba oo barafoobaya hortaada, isagoo oo ku dhagaxoobaya oo baraf adag oo aan la jebin karin noqonaya, qabowga ka jira iyo xaaladda meeshu sida ay tahay awgeed. Halkan inta ugu badan waxaa lagu cabbaa cabitaano ka samaysan khamri, waayo jidhkooda ayaa waxay aaminsan yihiin in khamradu ay u yeeliso kulayl ama diirranaan. Sidaa daraaddeed ayaa khamrada loo cabbaa, si markaasi diirranaan jidhkooda uga helo, markaana ay dunida baaqi ugu sii ahaadaan. Hooyooyinka uurka leh ayaa cabba, ilmahoodu markay dhashaanna wayba ku bilaabaan, haddii kale qabow ayay u dhimanayaan. Xilliyada qaar, Greenland waxay darajada kulku gaadhaa 5 ilaa markaasi tiro u dhaxaysa 30 Fahrenheit. Waa qabow aad u daran oo qofka dhulka u dhacayo haddii uu wadan wixii uu kaga hortagi lahaa qabowgaasi daran. Jasiiraddan Greenland, haddii biyo caadiya oo kulayla dibadda loo soo saaro, kadibna lagu shubo weel oo hawada lagu daadiyo, adigoo arkaya ayay barafoobayaan. Bal ka waran heerkulka halkaasi ka jira iyo qabowga xadka uu dhaafsiisan yahay. Jasiiraddan Greenland waxaa gawaadhida adeegsan kara shirkadaha lacagta leh oo keliya, sababtoo oo ah gaadhigu waxa uu u baahan yahay matoor uu ku shaqeeyo 24 saac. 24 saacna wuxuu u baahan yahay shidaal aad u fara badan si aanu u barafoobin gaadhiguna u istaagin. Yacni hawl fara badan iyo in laga warhayo ayuu u baahan yahay. Sidaa daraaddeed, dadku ma wada iibsan karaan gaadhi. Tuumbooyinka biyaha laga cabo iyo shirkadaha biyaha soo saara waxay u baahan yihiin tuumbooyinkaasi in loo yeelo wax diirimaadiya ama kulayliya, haddii kale heer waxay gaadhayaan intay qaboobaan oo ay tuumbooyinkaasi qarxaan. Halkan waxaa ugu badan ee laga cuno waa kalluunka iyo noole kale oo ku jira badda oo loo yaqaano fakhaamatul baxri. Haddaba hilibkooda waxay u cunaan iyagoo karsan ama iyagoo qayrin. Xataa maqaarkiisa ayaa lagu cunaa iyada oo markaasi laga raadinayo waxoogay fiitamiina ah, waayo fiitamiin haddaan la helin jidhka difaaciisa ayaa lumaya. Xilliga dhulkan barafku uu daboolay, ma jirto wadooyin la adeegsan karo ama gawaadhi mari karaya, kaliya waxaa la adeegsadaa diyaarado iyo aalado kale oo barafka dul mari karaya. Gaar ahaan waxaa ka mid ah kuwa lagu xidho eeyaha. Shayga ugu badan ama ugu muhiimsan waxa uu yahay waa ugaadhsiga ama kalluumaysiga.
sidoo kale sanadii 1884 ayay Greenland noqotay qayb ka mid ah Denmark. waa meel qof dadka geesiyaasha ah mooyee aanay qof kale ku dhiiran karin inuu booqdo, waxaana degan hadda 60,000 oo qof. haddaba adigaagan i daawanayay ma ku dhiiran lahayd inaad halkaasi degto? haddii guri iyo wax kasta lagaa siiyo ma degi lahayd? nagula wadaag qaybta commentiga ee hoose. fiidiyowgeeni maanta intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, sidoo kale fiidiyowga haddaad ka heshana like saar. mahadsanidin.